kulanti wacan wanaagsan dadkaana daawanayo meel kasta oo aad joogtaan. Halkani waa studio-heena magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee wadanka Mareykanka. Barnaamijkeena gaarka ayaa daawadayaal waxaan idinku soo gudbin doonaa oo uu ku saabsan yahay baafin. Dad badan baa isweydiinaya cidda aan baafinayo iyo waxa baafintani ay tahay. Ha yeeshee way ka duwan tahay baafimihii aad uga barateen idaacadaha iyo telefishinada Soomaalida. Inta aan sheegin cidda aan baafinayo aan ka horreysiiyo qisada dhabta ah ee ay baafintu ku jirto ama ay ka tarjumayso. Sanadihii lixdanaadkii ee xornimada Soomaalidu ay meesha ugu sarreysay mareysay ayaa Talyaanigii joogay wadanka koonfurtiisa gaar ahaan gobolka Shabeellaha Hoose marka iyo ereyadeeda ayaa waxa ay diideen in ay ka baxaan. Dagaal badan, gaadmo badan, wada hadal iyo fadhi la isugu yimaado iyo gorgortan muddo dheer socday ayaa Talyaanigu waxay go'aansadeen in ay xornimada Soomaalida koonfurta ah ay siiyaan. Intii ay ku jireen diyaar garowga oo iyo amba bixii dadkii ka joogay gobolkaasi oo ay Muqdisho isugu biyashubanayeen ayaa waxa dhacday qiso kale oo markaasi keentay in ay dib u dhacaan. Sarkaal sare oo Talyaaniga ayaa nin Soomaaliya oo reer miyi uu toorey ku dilay. Tooreydaasi oo uu laba ugu kala gooyay ninkiina uu ku nafwaayay. Talyaaniga ayaa dabeetana aad u cadhooday oo go'aansaday in ilaa iyo inta ninka la keenayo aanay ka bixin dalka. Isjiitankii ayaa qaatay time amaba waqti. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa haddaba daawadayaal nin Soomaaliya oo gobolka u dhashay oo reer miyiga oo ka soo jeeday beesha biyamal uu markaasi u yimid madaxdii ama odayaashii Soomaalida ee gobolkaasi joogtay. dabeetana waxa uu weydiiyey in Talyaaniga baxay aan kale. Waxaa loo sheegay ninka odayga ah Talyaaniga inuu dib u dhacay kadib markii uu shilkaasi dhacay oo nin Soomaali oo ninkii Talyaaniga ah sarkaalka u dilay. Ninkii uu noqday safarkiisii labaad ayuu haddana wareystay in hawshii ay kala digtay oo Talyaaniga uu baxay. Waxaa loo sheegay in weli hawshii ay adag tahay. Waxaa ninkaasi soo jeediyey in isaga laga dhigo ninkii wax dilay oo loo sheego sidii wax loo dilay iyo meesha wax lagu dilay. dabeetana in isaga uu u dhinto Soomaali daraadeed si ay xornimo u hesho isaguna uu nafwaayo. Waxa uu sheegay inuu dhowr ciyaal leeyahay, dhowrka ciyaal la eego ama laga warhayo isaguna uu aakhiradiisa doorbido. Wuxuu naftiisa u huriyay Soomaaliya ama dadka Soomaalida. Arrinkii baa laga diiday. dabeetana wuu iska baxay. Safarkiisii saddexaad oo muddo kala qaatay ayuu yimi. dabeetana waxa uu yidhi waan soo dardaarmay maanta noqon maayo arrinkii aynu kala tuurno. ninkii baa laga dhaadhiciyay markaa sida wax u dhaceen waa la aqbalay. dabeetana haddii ilaahay ku riyahay waxa gacanta loo geliyay Talyaanigii. Talyaanigii markiiba way daldileen. ninkii ilaahay janniyo raxmaha siiye uu dhintay. beesha biyamal ayuu ka soo jeeday gobolka marka ama Shabeellaha Hoose ee marka caasimadda u tahay. dabeetana Talyaanigii ayaa guuray oo xamar isugu tagay ilaa iyo intii ay ka ambabaxayeen. ninkaasi waxa uu keenay midhaha iyo madaxa ah in ummadii Soomaaliyeed uu naftiisa u horo oo ay xornimo ay ku naaloodaan ay gaaraan in iyagu ay noqdaan dadkii dalka iska lahaa ee go'aanka iska lahaa ee u tashanayay aayahooda iyo mustaqbalkooda. ninkaasi waxaa sheekada ii soo gudbiyey maaha sheeko aan soo dhegtay ama meel aan ka soo akhriyey amaba been abuura waxaa ahayd sheeko si dhaba uu igu soo gudbiyey oo uu igu sheegay General Maxamed Cali Samatar oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dowladdii Maxamed Siyaad Barre marna ahaa wasiirkii gaashaandhigga. Maxamed Cali Samatar fariin ka timid oo qof kale uu iga sheegay ma ahayn laakiin waxay ahayd mid aniga cali ahaan uu si toosa igu sheegay. ha yeeshee igama siinin jawaab waafiya sababaha taariikhda ninka loo qori waayay. si kastaba ha u dhacdo ama siyaasadaha ku jirtee waxaan ummadda Soomaaliyeed ee daawanaysa aan ka codsanaya ee ay ku jirto Soomaalinimadu ee ay ku jirto in Soomaalidu ay kaliya tashato oo madax banaanaato arrimaheeda ee jecel in dawladda shisheeye aanay arrimahooda soo faragelin ee nacab cadowgooda u aragta in dad shisheeye ay yihiin cadowgooda laakiin iyagu ay yihiin dad walaala. intii aragtidaa leh ayaan ka codsanayaa inay soo gudbiyaan tafiirtii iyo isirkii ninkaasi meesha uu ka soo jeedo aan sheegay haddii aad wax macluumaada ka haysaan anigoo ururinaya taariikhda dadka hiirooga ama halyeeyadii Soomaaliyeed ee aan taariikhda lagu qorin amaba sidii xalana oo kale ama gabadhii Soomaaliyeed
ee xawataaka oo kale taariikhdooda aan si dhow loo helin ee ninkan uu ka mid yahay in markaa aan ururiyo oo ummadda Soomaaliyeed jiilasha dambe loo soo bandhigo fadlan waxaan markale ku celinayaa haddii aad garatid ninkaasi meesha uu ka soo jeedo in macluumaadka aad ii soo gudbisaan waa anigoo cabdi xalaadha oo dhammaantiin midi kaga tegay sidaa iyo nabad geliyo